حالته اوكي سما ما شاء الله اوكي وقار كميدا اصحاب تدق وسعودالكي aan ku tagnay degmada Afbarwaaqo ee gobolka Mudug waxaanu ku eegi doonaa isbedelada ka jira deegaanka xagga haddii aan leed markaa nolosha iyo horumarkaba waxaan booqan doonaa meelo badan intaan socdaalkeena ku guda jirno daawada ina soo raaca barnaamijkan waxa uu ka koobnaan doonaa qaybo badan waxaanu ku eegi doonaa nolosha iyo isbedelada ka jira Afbarwaaqo waxaana sidoo kale si gaar ah u kulmi doonaa dadka deegaankan muddo dheer wuxuu caan ku ah colaado sokeeye laakiin waxa eegi doonaa wajiga cusub ee hadda Afbarwaaqo laga filan karo waxaanu tagi doonaa goobaha aan ku suganahay sida hadda waqtiyadan meelahan hadda aan joogno waa goobihii burburka dagaalada sokeeye waxaan tagi doonaa qaybo kale oo isla markaana deegaanka waqtigan marka loo sheego isbedeladii dhacay iyo waxa laga filan karo hadda dabcan waa deegaanka dagaal sokeeye daawadayaal waxaan ku soo socdaa suuq Afbarwaaqo suuqan saa u jeedaan burbur baahsan badan ka jiro isla markaana meeshan aan ku sugannahay waxa aad ka dheehan kartaa in dadkii isbedelada kala duwan ay ka soo kabanayaan xagga nolosha iyo midda siyaasadda bulsho badan aad degan meeshan laakiin hadda qaybaha bulshadan kala duwan waxa ay u muuqataa in ay dadaal badan muujinayaan si ay mar kale u soo kaban lahaayeen Afbarwaaqo waa deegaan istiraatiiji ah oo ku yaala gobolka Mudug laakiin waxa sameeyay dagaaladii sokeeye dabcan waxaan jecelnahay muuqaal kooban oo magaalada aan idinku soo wareejinayno inaan markaa nala daawataan waxaan soo galnay goob ganacsi oo mashquul badan ka jiro waxa goobtan maamulo ka ah ganacsade oo ah nin dhalinyaro ah oo kamid ah ganacsada Afbarwaaqo waxa uu iibiyaa agabyada kala duwan ee markaasi qutuldaroriga ah ganacsade inaan kula kulano aad bay u wanaagsan tahay bal ka waran waqtigan isbedelada ka jira Afbarwaaqo okay boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin isbedelada ka jira boqolkiiba boqol bay fiican yihiin sidaas weeye ما حد رأي مثلاً وقتها حلقة أولاد إني وقتها أبرع أسبدل وكجد. dalku inuu soo kabanayo oo nabadi ka jiro insha Allah boqolkiiba boqol rajo fiican baa laga qabaa haddana in boqolkiiba boqol ay carradu fiicnaan doonto rajadaas aan qabnaa waayo maxaa u baaqaysaa bulshada waqtigan sida ay nabad u qaadanayaan oo ganacsiga ugu marin lahaa kale bulshada waxaan ugu baaqaynaa Ilaahay mahadiis in nabadda la wado oo dalka iyo dadka la badbaadsho oo sida ugu fiican nabad baa lagu seexdaa nabadda la hagaajiyo intaas ugu baaqaynaa insha Allah waa ganacsade oo inoo warramay daawadayaal markana waxaa loo kulana mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka Afbarwaaqo waa Maxamed Soolex Maxamed deegaanka ka waran waqtigan isbedelada deegaankan
oo ka mid ah dhalinyarada deegaanka Afurwaqa ayuu ahaa waa qaybo kale kulankeena soo dhawaada daawada la dhageysta waxaan moodaa in qaybo badan oo ka mid ah aan soo marno magaalada isla markaana waxaan u baahanahay waqtigan inaan nasano caadiyan marka aad ku sugan tahay Afurwaqo waxaad u baahan tahay kaliya xilliga aad daal badan dareentid inaad koob shaah qac ka siiso bal markaan qaybtii maqaaxida ayaanu eegi doonaa iyo qaar ka mid ah asxaabta oo halkan aan kula shaqaysan doono xaaladda okay soma ma sha Allah okay waa qaar ka mid ah asxaabta deegaanka oo aan isku aragnay waqtigan goob ay shaah ku cabiyaan waxa ka mid ah saaxiibkan ayay magacaaga waa Maxamed Abuukar Yuusuf kamid aqoonyahan deegaanka Afurwaaqo waxaan meeshan ku wada caawinay shaah si nabada aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah waayahay maxamed qaybo badan oo nooga sheekeyn doona oo waqtigan isbedelada ka jira deegaanka waxa ka mid ah way arag hore oo deegaankan ah wala magacaaga Saciid Ismaaciil haye fooran nabad qiyaasi haye Afurwaaqo haye xaaladeedu waa fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay dib u habayn wanaag sharaf khiyaar baa hadda waxaan jecelahay inaan kaga warbixino in waxaysan tahay waana nabad arada waa nabad ku soo deegaanka imisa dad badan baa jooga oo sharaf leh intaasoo qoys baa joogta oo badan meesha isbitaal ma leh haddii ay ku rooyaan deegaanka xoogaa sidii dhibaatadii hore u gaartay waa waxaysan yahay dib u habayn buu u baahan yahay nolol buu u baahan yahay wax qabad buu u baahan yahay waxaan ka fiirinay dawladdan ka fiirsanayna meesha da all idmo idanka ilaahay haddaan ku helo waayahay dabcan isbedel weyn ayaa laga dareemayaa deegaanka Afurwaaqo waqtigan hawaaye markana daawadayaal waxaan moodaa xagga shaaha mar hore ay ugu dambeysay deegaanka ayay bal maxamed oo haye masha Allah deegaankan waa deegaan Afurwaaqo maanta masha Allah degmo baa naloo magacaabay deegaanka dhibaato fara badan buu soo maray xagga amniga maadaama qabaa'ilo badan iyo dad badan ku dagaalameen laakiin sidoo hore maanta maan way dib u soo noqosho baa jirto masha Allah nabada Allah noo siyaado deegaanka wuxuu caan ku yahay sheekh marka qofka oo xoolo ka yimaado barida masha Allah inkoo saada baridina horteenaysan oolin shaah iyo barid caan buu ku yahay masha Allah hadda barid marka inta ku cidanta ma ku jirinaysaa uu fresh leedahay masha Allah sidoo kale wuxuu leeyahay koobo dalxiis barida idaha u badan masha aricadka waxa la jecel yahay idaha hadii maanta siyaar la leeyahay ama wax la leeyahay sideed kamida waa ido laba deegaanka goorma ku gudbeysa deegaanka baaba dadka jooga oo kamid ah isbedel weyn baa jiray waagaan ogaayay hadda naqshad fiican yahay maadaama waagii hore colaad iyo dhibaato baa iska jirtay laakiin hadda sida hore ma aad buu u dhaamaa maasha Allah dabcan weli waxa wadnaa kulanka shaaha iyo dhalinyarada qaybo ka mid ah deegaanka Afurwaaqo aan kula shaqaysanayno waxa uu soo laabanaya way joogay Afurwaaqo ogaantaada bilowgii hore halkeebay ka bilaabanaysaa marka magaaladan hadda dabcan magaaladan hadda waa ay balaaratay bal waxa iga warantaa magaaladan halka ay ka bilaabatay isbedelada waqtigan sida ay magaalada u weynaatay magaalada fiis baa lagu wadaa wanaag baa lagu wadaa sharaf baa lagu wadaa qurux baa galabta noo muuqanaysa iyo sharaf rag baan wadaa annaguna waa la jecelahay aad baan ugu riyaaqsannahay meesha nabadeedu waa aad bay u fiican tahay sidii hawlahan loo wadi lahaa yaanu ma ka rabnaa dawladda iyo sharafta khiyaarta sharafta loo inoo timid marka waa weynta waana ballaaranta waana fogta magaalada waa ballaartay dib u dhis bay u baahan tahay iyo hagaag in hore u socoto sidaasaa loo baahan yahay hadda dawladdan kana dhowranay way Afurwaaqo markii la yimaado Afurwaaqo markii la yiraahdo maxay caan ku tahay waxay ku tahay xoolo dhaqato iyo dadku
wuxuu ka yimaada meeladu waxay ku yimaada ahyaasha meeshu caanay leedahay xoolay leedahay iday leedahay abaar baa marun taabato xoogaa dib u celisay laakiin haatan wanaag baa ka muuqanaya dib soo nolosha ka muuqata iyo nolol baa ka muuqanaysa laakiin kolkii hore way dhimatay meel baxay noqotay dhimatay laakiin haatan nolol baa ka soo muuqanaysa sharaf baa ka muuqanaysa hadda fadis waxay u baahan tahay wanaag bay u baahan tahay hadda wanaag baa nooga muuqanaya weji wanaagsan wadaawadyaal weli waxaan ku guda jirnaa kulanka aan la yeelanayno shacabka deegaanka Afbarwaaqo oo waqtiga aan soo diyaarnay in degmo loogu dhawaaqo iyo sidoo kale isbedelada ay filanayaan xagga nolosha waxaan markaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Maxamed waa nin abwaan ah oo isla markaana muddo fog deegaankan u soo joogay wax badan oo xagga nolosha isbedelada jiran xog fiican ka haya soo dhawow السلام عليكم أفريقيا تونكي هم تبغون كانوا في الصلاة سلام كبعد جد أرتا أفرواقو مركي اللي جراهده نك عقلي لو قرن كذا نرشة مجا برواقة إن هنش دي أرتا تاسد قرن كذا مجا برواقو محلو وحلو بحشة أرتا ماشان أرتا هراء أفكو سوري بالوجه أفكو سوري هنا قبيلات بالوجه قبيلات بالوجه من سورة قتالي يما كل أيام بس كذا ترى ولا الدق مرجع مركي وساس أها وأفكر سوري الأورنجي يا هذا سيان برواتو ضلك قصر صومالي واتو مدي نبت قليل واتو كسمي قبيلات واتو باباش صبح الدنبا dad waftiya oo saraakiilka kooban yimaada waa laga martiqaad madaxweynaha ma waa ragus waxa yimid ninka Ali Samatar baayin waa laga martiqaad markii laga martiqaad wuxuu yiri ceelkuna ceel iska dacyaalo oo dacdu ku shumanto oo halaysan buu ahaa wuxuu yiri ceelkan waa in la dhisaa magaca ku yeeran waa in laga bedelaa Afbarwaaqan maanta u baxsh ماشي مقالة جيس كده أنا كجال ها ألف وين وين ألف وين اللي صار له مقعد أساسا له مقعد وين له مقعد وداود بقع داود يلا مقع أفرواقو استوكو بحي أيام أيضا يفكرنا وريد مع محمد آدم مهسين ها هو تساس أفرواقو كل بحر ساس كل أهم شيء بربر كبا سوقاري هذا ميل دولة دي بربرو ودلكادي بربرو نولش هاين ميسو مقعينا هاين ميسو وعوية مركا وقت كان بالغا سوقاري اسمه هو بربري دلك هو بربري ددك هو بربري هذا ما أنتي وعياتهاي فعلى يري ددك شعبك iyo dawladdu waxay isku yihiin caruur aaba u safray oo suganaysa caruurta hadii safarku u yimaado waa farax iyo nolol hadii safarkaas la waadana waa baaba anoo maanta marka hadaan dawladda hadaan maanta ay noo timi oo qodooyinkeeda aan dhageysanay caruur safarka u maqnaa safarka u yimid baan aba calool gashan waxaan dareemaynaa kelmadaha aan dareemaynaa waxa weeye horta wax bixinta ilaah baa iskale wax bixinta horta rabbi xaqiisa ka soo go'da laakiin se waxa la fir ijtihaad dadaal badan loo galo anoo marka waxaan fahmaynaa dadaal inuu muuqdo dadaal inuu muuqdo inta badan dadku ay sheegaan dadka wada taga Afbarwaaqo inay sababtigaan nabadda diyaar u ahayn ma loo baahan waqti ay ka shaqeeyaan nabadda isdhexgalka sameeysan deegaanka sida loo hormarna waqtigan qaybgan ka ah oo la iska iloobo colaadaha dhexdiina waxyaabaha ummadda aan horumarka badan u keenin diyaar u tiin laakiin bulshada orta waxa weeye dadka hadda adduunweynaha iska hor imaanaya qof walba leeyahay caalim buu leeyahay wax garad buu leeyahay madax buu leeyahay madax intaasuu leeyahay intaasna colaad iskuma raacin dad yaroo shakhsiya wax bi'iyo dadkana waxa loo wada dawlad qabata haddii marka dawlad dadkaas xalisa loo helo inta kale nabad oo heelanta way idinku diyaarad marka bixada ka dambeeya laakiin dadka soo iskama qaban karo waxa laga yaabaa dadka wax sameynaya waa dad kooban ah dadka inta badan way badiyeen idinku diyaar u tiin Soomaaliya annagu diyaar baan dadka wax beeska ila qabta
maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku daawanaya iyo dowladda bulshada waxgaradka qurbi joogta maxaad leedahay waxaan leenahay waa soo dhaweynayna 14 soo dhaweynayna وانا ماشان كجا مهماهي عرورتو دام با امقن دام كدو جيبادو waa ku farxa dam ba umaqan ha dam kale waa dadka dawladda hay sida ya ma awal waa umar حصل فانتاستيك بالشدة حدك بارو تغير برني مطو بارو تغير ودني حلو بارو تغير برني مطو بارو تغير ودني حلو بارو تغير حصل فانتاستيك wasiirka dadka intaan ogeyn mararka qaarkood xagga suugaanta waa isku fiican yihiin markii la joogo meeshan oo kale isla markaana isbedeladan la dareemiyo kale suugaanta maxaa ka tiri markii farxaddu ka badato oo arrimaha jawiga aan galabta ku jiro kale ah adka badanaaba igu noqdaa maxaan ku dhahdaa mana aad uga helo oo maskaxda waxaa aad buuxinaya waxyaalaha kale laakiin mar haddii madaxweynihii yimid waxaa la dhihi jiray waagii dowladda kacaan ku jiri jirtay oo dadka heesaha iyo xaqaadaadi jireen ayaa waxay ugu soo dhacay hees ka mid ah heesahaas dowladda waxaa la dhihi jiray tawradda marka tawradda taan barakaysan tallaabadii ay qaadeen dadweynaha tii ka daryeeshe tabar iyo taag baan qarabkiinaan taagane qoorqoor baan taageersanay dowladda tan barakaysan ee galmudug dadweynaha tii ka daryeeshe tabar iyo taag baan qarabkiinaan taagane mardii 500 santi wafdi uu madaxweynuhu hogaaminaya afar ku yimaadeen taageero iyo farxadda ku soo dhaweynaa dadka reer Afraaqo iyo nawaaxigooduna waxa ay tuseen madaxweyne qorqor kalgacaylka u qabaan iyo wanaagga madaxweynuhu wuxuu muujiyay socdaalkiisa marka loo eego kalsooni iyo madaxweynuhu horreeyay safar intaas lag tasoo galo yimaado guuleysta ayaan leenahay tiimkiisa oo aanoo kamid ah wasiirka warfaafinta kalena waxaan naga go'an in deegaanada galmudug aan aad wax uga qabanno sababta loo xushaa saas ahayd xisaabtan baa jiri doona warku iska dhexma noqon doono marka Afraaqana waa la arkaa waxay tahay dhulka baaxadiisa dadka sharaftiisa dhulka quruxdiisa deegaanka habboonaantiisa khayraadka ka buuxa oo ugaar leh oo duuyo leh oo hadii la kula miraha hataa geedii biraha ku aragnay aad loogu xabanaa in macdan badan ay ka buuxdo shidaal badan ka buuxo haleenahay gul iyo Afraaqo oo lagu guuleystay runtii aniga kulli aad iyo aad faraxsanahay waxaan u faraxsanahay wafdi waxa la socda oo madaxweynaha dowladda galmudug uu wado oo uu hogaaminayo Axmed Cabdikaari Qorqor ilaa dhus faraamid soo socday golol yimaado Afraaqo yimaado waa farxad guud oo saa'ida ayaduna wax aad loogu farxo oo aad u qiimo badan waxa weeye waxa golol waa meesha ku dhashay هذه قيمة قولي هي لهذا هذا واحد كم موضة اسمه عصبة موضة نية تتكلم موضته إن تصلى بتها موضته وحاصل وحي كنا يعني هرمر آد صغيرة كانوا كفاية سنة كامل التلفزيون تتك دوتشوجا يعني أنا كم بيتهاي شيء دياس برا كنتوا أمانيين أو قوليها نقول حضنا عيال سي هذه الندو هيان حوالي إذا معناها يوركيين قوليها مركل لسه تطبع إلى حال محايا أردقها يا سحرايا أنت كليه مدحوينها يوفتيسه وروحوا يا نامك لقوة شيء أيها وحا مارته آديات وقيمة بدن وحلا وياه عن قوليها بدية عن سهولة بدية وعن صار نقض أذوق قولي خدسته ضد حتى كوها والله نحن ضد بدن إن كوها وليهين إن قولي زاد وهانتي آديات حيلك وحب براوي dawladdu wax bay ka qabanaysaa intaan dawladdu ay joogtana wax weyn laga bedelay waan arkaysaa balaqaadyadii iyo farxadii madaxweynaha ka muuqatay qaabkii loo soo dhaweeyay qaab waxa cajiib ah oo maaragtay la dhihi karo arrin heer sare marka Afraaqo waa aniga kulli taba marka laga tago ilmanimadaydi waa markii ugu farxadda badnayd sabta sanadood oo diyaasbara ku maqnaado 3 jeer nimid maalintii ugu farxadda badnayd
iyadoo madaxweyne la socda inaan imaado iyadoo degan inaan imaado iyadoo aan la baqayn inaan imaado iyadoo dhisma ka socda inaan imaado iyadoo dad soo noqda inaan imaado iyadoo dadka wada degan ay midaysan inaan imaado waxaasoo dhan waxa weeye waa farxad lagu daray aad iyo aad ugu faraxsan dadku marka ay maqlaan wasiir Axmed Sharaf Falagle waxa taa wasiirka warfaafinta ee Galmudug dabcan marka la eego dadka marka wasiirada ka soo jeeda deegaanka waqtigan isbedelada iyo heerarka kala duwan ka soo martay deegaanka iyo waxyaabaha hadda laga filan karo maxaa looga taban kartaa waxyaalaha laga filan karo waxa weeye xaaladda markaan hadda qiimayno waxa muuqanaysa in dadku ay si kalsoon yihiin waxyaalaha ugu muhiimsan waxa tahay aan dareemo waxa kamid ah nabadda dhex taalla dadkii halka ku dagaalami jiray oo aagan geedaha ku dagaalashay oo ayagu labada dhinac nabad qaatay dadka dowladaha jooga ama dowladaha ku jira ama siyaasadda ku jira labada dhinac ka dhashana aadan barashar waxa u saareynaa inaynu maaragtay aan wixii naga dhinto naga taacad ka imaan mar haddii dadku ay nabad u muuqato oo mar labad la dareemana sida saaka afar ka muuqata waa nabad dareen nabadeed muuqda mar haddii dareen nabadeed muuqdana dadkuna waa soo noqonayaan xooluhu iyo reemigu waa soo noqonayaan wax golol oo haddii ilaahay kula gawyaheeda ay dadku nabad ku wada yihiin haddii meelaha ugu sarreeya ay ka mid tahay dalka Soomaaliya oo ugu quruxda badan leh oo ugu ciidda wanaagsan ugu biyaha wanaagsan ومال تاريخي marka daawada dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka oo aan ka diyaarinayna afar waqo gabdhahan waa gabdhaha ubaxa deegaanka la yiraahdo waxa ay markaas inta badan soo bandhigaan barnaamijyo kala duwan xiliyada ay munaasabaduhu jiraan qaar kamid ah gabdhaha waxa ay kamid yihiin ardadii wax ka baratay iskuulada waxbarashada ee deegaanka ku yaala ugu horeynta waxaan jeclahay bal qaar kamid ah gabdhahaas inaan wax ka weydiiyo iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ay qabtaan marka la eego السلام عليكم dhamaan waa salaamaya masaaliyaad waxaan ardayad dhigata iskuulka budbud degmada budbud waxaan ka socdaa halkan ka salaamaya dhamaan Soomaaliyeed ee furqanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا magacaygu yahay Maryan Cabdulqaadir Cali oo ka tirsan degmada Afbarwaaqo waxaan wax ka bartaa degmada Afbarwaaqo waxbarashada Afbarwaaqo aad iyo aad ayay u fiican tahay anaguna waxaan rabnaa sida dadku wax noo bareen macallimiinteena inaan sidoo kale anaguna wax u barno assalaamu calaykum salaam waa qaar kamid ah ardayda wax ka barata deegaanka Afbarwaaqo oo iyagu halkan aan wax ka weydiin doono bal in ay wax ka og yihiin qatarta COVID-19 COVID-19 iyo coronavirus ma taqaan ay وانا قاعد إنه عذر حياري عذر خطر مياه أي محل سمعنا ما فضل قلت له يا إلا فضل قلت له واي هاي وقعها هذا ما هذا عندي كورونا فيروس متقنا نعم هاي معك كم ستة إنه عذر دراية هاي أو أدون كأنه وقطر قليل سيدي بقى لقوه تكرا كورونا فيروس إنه ما فضل قلت له ويه هذا ما سنتين حسن فانتاستيك برشادة حدك بارو